الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي صدح يا صدنات يا كتاب كين حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله طعام أهل الجنة وشرابهم وعن هل كان واحد لينا انتظى أي عنان دتك جنة كجرة إيو شرابك يا عبتانك أي عبان سيقود ربي وحو ليي وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين جنة وحا كجرة سيدادبا وح الله وحي نفتو أي دونتو إندهنا أي كقبو سدان وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بلو فيرس ربي سبحانه وتعالى تلمانتا وكبحين أي فاكهة وخضارتي ووح الله وحي إيو كدورتان كي جعليهين إيو لحم طير شمبرتا هلب كيدا شمبراها إنو الدقاد با دادكينا انتا بدانو ودنكيني إيو باديهيني حولها إنو نقيني لكن شمبراها إيونا ويهلب في عيهين ويهلب معايهين المهم هداد هلب جيل جعلان لهيد إيو كو أري إيو كو دقاق إيو وح الله وحا جعلان لهيد با iyo malaygii iyo wixii badda ku jiray waxa way qof walba wuxuu ishtiheeyo ayuu helayaa jannada kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fil ayaami alkhaaliya marka cuna oo cabba baa la odhan doonaa si bogaagsi ah yani wax alla waxaad rabtaan cuna oo cabba rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ka waramayey awalu zumrah dadka ugu horeeya oo jannada gelaya wuxuu yidhi suuradoodu waa sida dayaxa oo habeenka 14 ah oo kale habeenka 14 dayaxu aad buu u nuuraa oo u cad yahay marka suurada iyo muuqaalka dadka jannada geli ugu horeeyay muuqaalkaasay leeyihiin jannada dhexdeeda candhuuf laguma tufayo xaakiya waxyaabo kale laguma tufayo meeshaas xumaan iyo xaggii dambe iyo masquul ahaan meel loo fadhiista ma aha dadkaas dharkooda iyo waxaa laga waramay xitaa shanlooyinka ay haystaan waxaa laga sameeyey dahab iyo fida laga sameeyey idanka wixii la odhan jiray oo dabqaadkii ama uunsiga oo kale waxyaabaha lagu qaatay guryaha lagu carfiyo waxaa laga sameeyey jawhar iyo lu'lu iyo waxyaabo ayaa laga sameeyey dhididkoodu dadkaas ahlu jannada waa miskiga oo kale caraf ayaa kasoo baxaysa qof kasta oo iyaga ka tirsan dadkaas ilaahay ugu talagalay jannada ee ragga ah laba zawjo ayuu leeyahay laba xaas ayuu ku tilmaamay oo kuwii adduunka waa inaga hore usoo fasirnay markii laga tago dadka xuruuciinta ilaahay dadku ugu siyaadinayo oo wuxuu yidhi la arkayo dhudhumadooda dhuuxooda laga arkayo maaragtay laxmiga iyo maqaarka iyo hilibka ka kor looga jeedo bimacnaa quruxdii oo la tilmaamay wey guryaha hadda markii la tilmaamayo waa guri dhala ah baa la yidhahdaa saas oo kale waa guri isaga dhan muraayad ka samaysan waa guri sidaas marka waxaa loo tilmaamayaa quruxda halkaa jirto waana iska suuro dhaweyne waxaan garan karna maxaa jira qalbigeen xitaa wax kusoo dhici kara oon tilmaami karna male wuxuu rasuulku ka sii hadlay sala allahu alay wasalam dadkaas wax khilaaf ah oo dumarkaas adduunka dumarka jooga hadda masayr iyo kala jiijiidasho badan baa jirta iyo tuhun badan baa ka dhexeeya xaggaa loo batay iyo xaggaa loo badan yahay laakiin halkaas wax tabaaqud ah iyo wax cadho ah iyo wax masayra kama jiro qalbigooda waxaad moodaa hal qalbi inuu yahay yani hal qalbi miyuu iskhilkhilaafaya waa hal qalbi oo kale baad moodaa subax iyo galabba ilaahay subxaanahu watacaala bay u tasbiixsanayaan waxay ku jiraan cibaada ilaahay wuxuu ugu talagalay ayay ku jiraan waa xadiis imaamu muslim uu soo saaray ayib libaaskooda iyo dharka ay xidhanayaan rabbigu wuu ka waramay yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin walu'lu'an walibaasum fiiha xariir bay qabaan oo dharkoodu waa kaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin wayalbasuuna thiyaaban khudran min sundusin waistabraq muttakiina fiiha cala laraa'ika nicma thawaab yacni waxay ku jiraan dharkaas xariirta qeybaheeda kan ad adag
iyo kan jilcanoo naacimka wax alla waxay rabaan furushtooda iyo goosha ay ku jiifaaneen fiihaa sururun marfuuca wa akwaabu mawduuca wa namaariqu masfuufa wa zaraabiyu mabthuutha yani waxyaalo ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay bay ku dangiigaan oo ku jiifaan oy maarata halkaa rabbi markuu tilmaamo muttaki'iina calaa rafrafin khudurin wa cabqariyin xisaan ay ku dangiigaan oy ku santeecsadaan halkaas ay ku jiifaan. ilaahayna subxaana watacaala dadka ahlu jannada isugu imaanaya dad xiqdi uu ka dhexeeyo xumaani ka dhaxaysa ma ah. rabbi baa wuxuu wanasacna maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan calaa sururi mutaqaabiliin, waxaanu siibnay wixii qalbiga ay isugu hayeen waanu ka siibnay. markaasaa waa walaalo isjecel sariiro iska soo horjeeda ayay kulligood ku raaxaysanayaan, halkaasay isku salaamayaan, halkaasay ku sheekaysanayaan, halkaasay hawl ku dhex maraysaa. ilaan waxaan nidhi dadka ahlu jannada ah dad meel lagu xidhay oo lagu daboolay ma ah, waa dad xor ah oo meeshay rabaan aadayo. oo taasaaba waxay kamid tahayba nicamta jannada ayay kamid tahay. ilaahay subxaanahu watacaala min ahli janna haynaga dhigo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.